halkan waxaa ku yaala oo lagu arkay dhagax mucjiso ah. Sheekhu wuxuu yiri waa dhagxaanta xidka ka mid yahay Xajul Aswad weeye qofkii hadda timaadaha qof xijina camal la mid yahay. Haddaba dhagaxan mucjisada ah halkee buu kaga yaalaa Gurceel muxuuse yahay oo ay dadku u hadal hayaan. Warbixintan ayaan kugula wadaagi doonaa balse inta aanan guda gelin warbixintan dhagaxan mucjisada ah ee halkan lagu arkay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si saaxiibo fara badan oo muuqaalkan u gaaro una share garee saaxiibada Facebook kugu weheliya si ay iyaguna u arkaan dhagaxan mucjisada ah ee lagu arkay gobolka Galgaduud. Dhagaxaani dhagxaantii xidka buu ka mid yahay nala yiriye hanala tusadalla waan aragnay. Dadka waxa leeyahay muuqaalkaas hala share gareeyo meeshaan joognaa huwa Gabuun saas baan leenahay. Halkan waa deegaanka Gabuun ee dhacda koonfurta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Deegaankan waxaa lagu arkay dhagax mucjiso ah oo ay dadku badankood ay aad u hadal hayaan. Dhagaxan iga dambeeya ay dadku qaar waxa ay ku tilmaameen inuu yahay Xajul Aswad kaasi oo noqonaya mid lagu xajin karo haddii aad taabatana dunuubta markaasi ay ka tirmayso. Waa sida ay dadka qaar qabaan. Jaamac Amaley oo ah nin waaye joog ah deegaankanna wax badan ku noolaa ayaa inooga warbixiyay dhagaxan mucjisada ah. Meesha tan waxa la yiraahdaa Gabuun waxay ka tirsan tahay Gurceel waxay u jirtaa 17 kiiloomitir ay u jirtaa. Dad badan waa u noo yimid oo la dhagaxa xidka la yiri oo sheekhu yiri hanala tuso dad badan oo yiri waan aragnay laakiin waxaan dhahnay anagu ma aan arag laakiin sheekhaas waa yimid dhagaxaan qulumo oo dad mushaaqiin oo ku wardiyahan arkay waana xusowna dhigay saasaan ugu warbax dadkaasi dad oo meeshaas xuska la dhigay oo xuska sheekhaasi dhigay dad badan ay yimid oo gaaraya boqolaal gaaraya oo maya waa marka xusko waa la isku yimid oo geel buu ku qalay sheekhu maya dadkaasi dad badan oo hayo raacba hadda ma tira koobi karo laakiin dad aan yarayn oo hayo baabuur wata oo le warbal hanala tuso dhagaxa la yiri sheekhu waa xidkii waaye dhagaxa oo yiri waa in la tusaa dad badan oo waan aragnay dhagaxaanta kaba bedela laakiin warkii la soo sheegay aawa dhagaxii xidka lagu tilmaamay dadka qaar la waan aragnay laakiin xid ma aha dhagaxaani dhagxaantii xidka buu ka mid yahay nala yiriye hanala tusadalla waan aragnay. Wadaadkaasi wax dhib lama uusan sheegin meesha waa uu yimid wuxuuna yiri dad mushaaqiin oo culumma oo ku wardinaya lay tusay yuri markii lay tusana waxaan rabaa in aan xus dhigo xuski waa uu dhigay kelmadda sheekhu oo dhagxaanta uga takooray waxaan arkay yuri culummo badan oo mushaaqiina oo Sheekh Cabdulqaadir iyo Sheekh Hebel iyo Sheekh Hebel ayoo oo gacmaha u saaran yihiin ku wardihayaan arkay yuri oo dhagaxaana maadaama aan arkay dhagaxi waxaan ugu soo dhacday in aan xus dhigo oo meeytadaas wardi u baxsho intaas uu yiri waa xidki ma uusan dhihin dad ayaa bedelay kelmaddaas oo yiri sheekhu wuxuu yiri waa dhagxaanta xidka ka mid yahay Xajul Aswad weeye qofkii hadda timaadaha qof xijina camal la mid yahay dhagaxaani xid ma uu ahan dad baa waxay u bedeleen wuxuu ka mid yahay dhagxaantii xidka buu ka mid yahay mana uu ahan dhagaxaan waa dhagax weeye dhagxaanta meesha ku taalo muuqata wuxuu uga bedelan yahay male Xajul Aswad waa yahay waa dhagax madow waay ma ahan dad baa waxay dadkii ka dhaadhiciyeen qofkii tagtaa wuxuu la mid yahay qof xidkii tagay dad baa war saas u sarrifay mana oo ahan